baahida ugu weyn ee Soomaaliya qabta waa biyo la'aan. dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa isu tagay sidii ummadda Soomaaliyeed uga haqabtiri lahaayeen dhanka biyaha. dhalinyaradan ayaa Garowe ku soo bandhigay rig ceel biyood ah kaasoo awood u leh inuu qodo ceelal aad u dhaadheer. Siciid Goox Salaad oo ku hadlaya afka dhalinyarada ayaa ka sheekay waxyaalaha ay ugu tala galeen dadka Soomaaliyeed inay u qabtaan. waxaan soo qodnay ceelal aad u fara badan kambanigu asal ahaan gobolka Mudug buu ceelasha ugu badan ka qoday kana soo jeeda oo ceelal aad u fara badan ka qoday waxaan qodnay meel ay adkayd biyo in laga helo oo biyaheedu ay adkaayeen oo aad xaaladeedu xasaasi u ahayd waxa kamid ah kala bayr oo ilaa dawladda Soomaaliya biyo la'aan ahaa oo dib badan aan ka maray ceelna aan ku guuleysanay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaa waa mahad iska leh inaan ceel ka qodno waxaan kala ka qodnay Burtinle oo iyada laftigeeda biyo la'aan baahsanay ay ka jidhay oo biyaheedu ay yaraayeen sida ceelasheedu 300 oo kale inay qodnaayeen oo riigagu aysan waqtiga dhaafin karin inay mitir inta ka dheer ay qodaan annaguna aanu ka qodnay 470 mitir aan ka qodnay marka ilaaba mahad iska leh ummadda waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan kambaniga Puntland Daliil Company. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmed Chama Chawle oo kamid ah dhalinyarada ganacsatada ee reer Puntland isla markaana ah dadka ka faa'iideystay riigan ayaa bulshada reer Puntland ugu baaqay inay ka faa'iideystaan. maanta halkan waxaan idinku soo bandhigaynaa kambani kamid ah kambaniyada ceelasha qoda ee ka howlgala Puntland. kambaniga waxaa la yiraahdaa Puntland Drilling Company waa kambani in dhawaalaba ka shaqeynaya deegaanada Puntland laakiin si Garowe dhawaan soo gaaray kambaniga annaga u yeernay waxaan ugu yeernay magaalada inuu ceelal nooga qodo waxa kamid ah hadeer laba ceel ayuu qoday ceelkii labaad waa ceelka naga dambeeya biyaha waxa lagu gaaray 20 mitir ilaa 105 buu qodan yahay 81 kamid ah waa biyo aad u fiican 12 saacadeed daarnaadaan aan kala go'ayn weeye run ahaantii waa shirkad aad iyo aad qiimo u leh dadka reer Puntland aad u anfacaysa waliba dadka deegaanada Garowe ku nool maxaa yeelay shirkaddan waxay biyo ka qoday dhul biyuhu adkaayeen in laga qodo ilaa dawladda Maxamed Siyaad Barre markii laga soo bilaabo sida deegaanka kala bayr oo nugaal kamid ah 450 mitir ayay qoday shirkaddan waana ka biyo gaadhay 2 sanana way ka shaqeynaysay sidoo kale deegaanka Burtinle ceelal bay ka qoday gobolka Mudug ceelal badan bay ka qoday kambanigan haddana waxa qorsheysan magaalada Garowe ilaa 7 ceel oo kala inuu ka qodo waa kambani ay leeyihiin dad dhalinyaro ah waa kambani diyaar u ah in dadka maaragtay biyo la'aantu hayso ay la macaamilaan ceelashana u qodaan. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Puntland ee Garowe ayaa soo dhaweeyay rig biyoodkan. waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Garowe shacabka Puntland ee caasimadda Puntland waxaan leeyahay waxa galabta noo muuqata horumar aad u weyn inuu soo bandhigay shirkadda Puntland Drilling Company oo shirkad ay leeyihiin dhalinyaro reer Puntland ah. riigan ayaa dhowr ceel ka qoday magaalada Garowe caasimadda Puntland. Cabdiqani Ahmed Maxamed Sanyare Kalsan TV Garowe.